wararka la xiriira Kismaayo ayayna ku guda jirnaayo urur ay ku bahoobeen naafada ku nool magaalada Kismaayo ayaa waxa ay kulan ku yeesheen magaaladaasi iyagoo markii hore soo dhaweeyay go'aankii ka soo baxay natiijadii doorashada Soomaaliya ee madaxweynaha waxaana dhanka kale ay si weyn u soo dhaweeyeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu noqdo madaxweynaha libinta la hoyday iyagoo dhanka kale sheegay ama diray fariin culus oo ku aadan sidii madaxweynaha uu u daryeeli lahaa naafada iyo guud ahaan bulshada Soomaalida mar kale Cabdulqaadir Jaamac ayaa warkan Kismaayo inooga soo diray kulankan ay isugu yimaadeen ururka naafada Jubbaland kana dhacay xafiiska naafada ee magaalada Kismaayo ayaa waxa ay hambalyo ugu direen madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo sidoo kale waxay codsi u direen madaxweynaha iyagoona ka dalbaday inuu si gaar ah madaxweynaha isha ugu hayo dadka naafada ah qaar ka mid ah dadka naafada ah ee ka soo qayb galay kulankan ayaa dareenkooda ka dhiibtay siday ugu faraxsan yihiin madaxweyne Farmaajo madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee wadaniga waxaan rabaa in aan meeshan gaaraar yar ka tiriyo ee ku saabsan curyaamada waana kana rugba maqano dhulkoosu qodaniyo aqaru ku dheelmaday kuwaba indhalo oo usha loo wadaaye kuwaba dhagalo oo haddii aad u yeedhana wax ka dhaadhaca jirin waxaan u hambalyeynaa soo dhaweynaynaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Soomaaliya 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 Farmaajo Farmaajo anagoo ah naafada Jubbaland Kismaayo oo maanta isku soo banaan baxay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hanolaado anagoo ah curyaaminta Jubbaland waxaan ka codsanaynaa inuu kor noo qaado musuqmaasuqa ula dagaalo waxaan lagu doortay danta yar iyo ku doortay shacabka ku doortay uma dooran qabiil uma dooran beel kuma dooran waxa ku door Soomaaliya dhan ku dooratay Rahmaanir Rahiim waxaan inta ka salaamayaa madaxweynaha Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Farmaajo hanolaado jiro joogan leenahay madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inuu noolaado hadii Ilaahay yiraahdo wax qabadna aan ka helno madaxweynaha hanolaado afayeenka naafada Jubbaland Abuukar Maxamed Raage ayaa ka hadlay goobta waxa uu sheegay in naafada Jubbaland ay taageersan yihiin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo halkan maanta waxaa jooga dhammaan guddigii iyo naafadii Jubbaland maanta waxaan u soo banaan baxnay oo u hambalyeeynaa oo bogaadin hawada u marinaynaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaan u hambalyeeynaa waxaan leenahay madaxweyne hambalyo ayaan ku leenahay marka koobaad marka labaadna waxaan ku leenahay dadka Soomaaliyeed ee dhammaan waxay u baahan yihiin madaxweyne caadil ah oo cadaalad ah oo corruption iyo musuqmaasuq la dagaalama ayay ummadda Soomaaliyeed u baahan tahay khaasatan haddaan nahay naafada Soomaaliya gaar ahaan kuwa Jubbaland waxaan u baahannahay oon ka sugaynaa oo dan yarta Soomaaliyeed ee Jubbaland ku nool ay ka sugaysaa inaad u samayso daryeel iyo horumar Soomaalidaas haddii amni iyo nabadgelyo aanu helo oo Soomaalida amni ay hesho ama nabadgelyo la helo oo corruption iyo musuqmaasuq laga dhinac maro naafaduna markaa way noolaanaysaa gudoomiye ku-xigeenka ururka naafada Jubbaland Xuseen Faarax Dirir iyo gudoomiyaha Shukri Saciid Axmed ayaa dhankooda hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee Soomaaliya waxaa saaka farxad weyn noo ah arrintan aan isugu nimid oo naafadii magaalada Kismaayo oo dhan ay isugu timid oo ah inaan marxabayno oo soo dhaweyno madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah nin wax badan la sugayay oo dadka danyartu aad moodaysay inay si gaar ah u taariikh gareynayaan oo siba magaalada Muqdisho ilaa iyo Zeylac ilaa iyo Raaskaambooni dadka danyarta iyo shacabku ay si gaar u raadinayaan oo aan anigu isleeyahay arrinta ayada ah wax uu dadka tuseemeehay waxa weeyaan waa ilhaan rabbaani aan leeyahay oo arrintaas arrin cajiib ay tahay waxaan ilaahay uga bariyaa arrinta ayada ah kii garta ee ilaahay ku xiltiro ee ilaahay garansiiyo oo ummadaas sida ugu faraxday ka dhabeeyo ilaahay inuu ka dhigo halkan saaka waxaan isugu nimi dhammaan naafadii Kismaayo oo dhan baa yimi in waxaan u soo banaan baxnay
oo halkan aanu nimi madaxweynaheena cusub maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo madaxweynaheena cusub waxaan ilaahay aga baryaynaa kii barwaaqo iyo bashash uu ku waariyo Soomaaliya oo idilba ballanqaadyadii uu qaaday madaxweynaha waan ka sugaynaa ciidanka caafimaadka iyo waxyaalihii oo dhan oo uu sugayo madaxweynaha Abduqaadir Jaamac Maxamed STN